الله الرحمن الرحيم dhagaxan waxa la yiraahdaa magaciisa barkimo shabeel baa la yiraahdaa wuxuu ku yaalaa meel ka mid ah Buuraleyda Golis ee degmada Sheekh Galbeedkeeda wuxuu dhow yahay tuulada Kurmiye meel ku dhow ayuu ku yaalaa taariikh uu leeyahay caana baa shabeel la yiraahdaa ama orgome loo yaqaan berigii hore ayaa 200 sano dadka ku cun jiray dad buu gaban jiray shabeelkaas uu seexan jiray shabeelku wuxuu ahaa bahal yaro isagoo rabaayada oo tukriga uu ka baxsaday deegaanka jiray Soomaaliland ee meelahan beeraha ku lahaa uu ka baxsaday isagoo rabaayada markii uu gaajooday ayuu ayada galay dabeetana wuxuu bilaabay inuu habeenkii guryaha soo galo dadkii inaan reer miyiga ay xilliga waddanka ku noolaan way fikran waayay marka wax bilaadanka mar la noolaa buu ahaa dabeetana wuxuu bilaabay inuu iyagu cuno marka cunitaankiisii wuxuu ku tarxay tagay inuu markaa dabeetana wadooyinka u fariistay marayaan wadadana weyn oo isku xidhay ilaa Sheekh iyo ilaa iyo magaranaysaa meesha la yiraahdo xiin weyne ayuu markaas dabeetana la soo geli jiray waana dhul ayaa dhulka qofka dabeetana halkaas uu gaadi jiray halkaas uu seexan jiray markuu qofku wadada halka marayo ayuu luqunta ka boodi jiray dabeetana luqunta kala jabin jiray aydan buu qaadan jiray ku jeedi jiray aydan dhulkan waa dhul aya sidaan imika wixii waliba ka sii aysana ayada soo geli jiray dabeetana markuu ka soo mariyo haddana halkii uu iman jiray qof socda laho wadada marayo ama Sheekh ku socda ama madheero ku socda ayuu dabeetana iga jiray qofka socda wadada marayo ayuu luqunta ka jabin jiray saasan ka soo gaarnay odayaasha ay ku tilmaameen marka dhagaxii imika waa wali halkiisu iska yaalaa taariikh badan ba ku qorqoran oo waatan oo xabaa lagu qorqoray wadada caana oo lagu tilmaamay barkimo shabeel marka taariikhdaas u dhagaxan leeyahay